kulan wanaagsan saaxiibayaal halkan waa Libero barta aan YouTube-ka ku leenahay kusoo dhawaada warbixin aan ku dul joogsan doono doorashada loo balansan yahay inay dalka Kenya ka qabsanto 9 bisha 8 ee sanadkan guud ahaan dalka Kenya waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada lagu soo dooran doono madaxweynaha xildhibaano senator wakiil haween iyo waliba wakiilka deegaanada 47 ismaamul ee dalka ka kooban yahay warbixintan waxaan si gaar ah diiradda ugu saari doonaa hadduu Allah awood leedmo gobolka waqooyi bari ee Soomaalida degto gaar ahaan ismaamulka Wajeer ahna ismaamulka nambarka 8 ee ismaamulada ka jira dalka Kenya Wajeer waxaa si weyn loogu dareemayaa ololaha siyaasadda 2022 ay musharaxiinta sameynayaan laga soo bilaabo kursiga barasabnimada ahna midka ugu muhiimsan kan xildhibaannimo midka haweenka midka senatarka ee aqalka sare dalka ee ismaamulada lagu matalo ilaa kuraasta wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulka ka jiro kursiga gafanaatoraha ahna midka ugu muhiimsan sidan hore u soo xusnay ee ismaamulka Wajeer ayaa waxaa doorashadan isu soo sharaxay 8 musharax kuwaasi oo mid kasto ayaga kamid ah rabo in isaga la doorto asagoo ku andacoonaya inuu yahay musharax ku haboon ee ay tahay inuu kursigaas hantiyo meesha lagu gaaro taariikhda 9 ee bisha 8 sideeda musharax ee mid kasta uu hanqaltaagay inuu hantiyo kursiga barasabnimo ee ismaamulka Wajeer ayaan waxyaabaha ay doonayaan inay qabtaan halkan idin kula wadaagi doonaa maanta waxaan diiradda saari doonaa laba kamid ah musharaxiintaas oo ay kaliyeen Axmed Cabdullaahi Jiir iyo walaal Maxamed Cabdi Maxamuud aan ku horeyna musharax Maxamed Cabdi Maxamuud waxa uu kursigan hantiyay doorashadii hore ee 2017 taasi oo uu kaga guuleystay ninkii ugu horeeyay ee barasab ka noqday Wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir Maxamed Cabdi Maxamuud inta uu kursigaas ku fadhiyay waxa dawladdiisa lagu eedeeyay inay ahayd mid aad u musuqmaasuq badan taasi oo ugu dambeyn sababtay inuu kursiga banaanka ka joogo muddo 9 bilood ah kadib markii ay mid kamid ah maxkamadaha dalka Kenya ka jira ay ku xukuntay sidaasi sidoo kale qaar badan oo shacabka ayaa u arkay in dawladii Maxamed Cabdi wax badan la hartay wax kasta oo horumar ah oo ka jiray ismaamulka Wajeer taasi uu soo bilaabay Axmed Jiir laakiin asaga waa Maxamed Cabdi dhankiisa waa uu beeniyay arrimahaas waxa uu ku sheegay in siyaasiyiin ay dabada ka riixayaan shaqooyinka musuqmaasuq ayna iyaga ka dambeeyaan musharaxa labaad waa Axmed Cabdullaahi Jiir oo soo noqday barasabkii Wajeer sanadii 2013 ilaa 2017 Jiir ayaa markiisa labaad doonayay inuu maamulo Wajeer isaga inta badan ku dooday inuu soo celin doono rajada reer Wajeer ee ah ismaamul horumarsan ee ay lumisay dawladdan haatan jirto oo ilaalin doona lacagaha shacabka loogu talagalay Jiir ayaa intuu kursiga hayay ka fuliyay magaalada Wajeer horumarina kuwaasi oo ay kamid tahay dhisidda waddo laami ah oo markii ugu horeysay Wajeer laga hirgeliyay dhanka kale dadka dhaliilsan siyaasadda Jiir ayaa ku tilmaama inuu yahay dictator aan ogoleyn wada tashi dhankiisa waa uu beeniyay sheekooyinkaas waxa uu sheegay in dawladda ay u baahan tahay adeeg loona baahan yahay in si wanaagsan wax loo qabto ee aysan ahayn insha Allah hadduu Allah awood leedmo warbixino kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa labada musharax ee aad maanta sheekadooda ka bogateen halkaas ay noo joogeen yaad isleedahay adiga waa uu qalmaa labada musharax ee aan maanta soo xusnay kursiga barasabnimada ee Wajeer County Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh saaxiibayaal kulanti wanaagsan markale ku soo dhawaada barnaamijka ayaa u qalmaa kursiga barasabnimo ee ismaamulka Wajeer iyo qaybtiisa labaad qaybta koowaad ayaan ku soo qaadanay laba siyaasi oo soo kala xukumay ismaamulka Wajeer 10 sano ee ugu dambeysay kuwaasi oo kala ahaa Axmed Cabdullaahi Jiir oo ahaa gafanatorihii ugu horeeyay ee ismaamulka Wajeer yeelato iyo Maxamed Cabdi Maxamuud oo haatan ah barasabka ismaamulka Wajeer guud ahaan dalka Kenya waxaa si weyn loogu dareemayaa ololaha doorashada oo ay siyaasiyiinta ku dalbanayaan codka shacabka saaxiibayaal ku soo dhawaada waa kuma shakhsiga u qalmay inuu maamulo ismaamulka Wajeer 5 sano ee soo socoto doorashada dalka oo ku aastaysan 9 bisha 8 ayaa cid kasta oo doonaysa kursiga barasabnimada waxa ay ololo siyaasad ka wada ismaamulka Wajeer guud ahaan maanta
barnaamijkii u qalma maamulada Wajeer ayaan ku gorfayn doonaa laba musharax oo kale ah Dr. Xasan Fuuje iyo waliba senatarka Wajeer Dr. Kabreta oo ah musharax kursiga ugu saameynta badan ismaamulka Wajeer ahna midka ugu muhiimsan sida ay dad badan qabaan. Dr. Xasan iyo Dr. Kabreta oo ah labada musharax ee maanta miiskii noo saaran ayaan idinkula wadaagi doonaa taariikhdooda oo kooban iyo waliba ajendaha siyaasadeed ee ay la soo shirtageen. sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha ay sheegeen inay u qaban doonaan shacabka Wajeer waa haddii ay soo doortaan. ugu horeyn Dr. Cabdullaahi Cali ahna senatarka haatan ee ismaamulka Wajeer oo loo garan og yahay Kabreta. Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu magac dheer Soomaalida guud ahaan dalka Kenya. marka laga soo tago dhanka siyaasadda waa xirfadle dhanka caafimaadka waxa uu ka soo shaqeeyay qaybo badan oo ka mid ah dalka Kenya oo aan ka xusi karno ismaamulada Isiolo, Moyale iyo waliba ismaamulka uu rabo haatan inuu madax ka noqdo oo Wajeer. Cabdullaahi in badan uu ka shaqeynayay goobaha caafimaadka waxa uu dhiga rogtay dhanka siyaasadda asagoo soo noqday xildhibaanka waqooyiga Wajeer sanadii 1997 asagoo xilkaasi hayay ku dhawaad 12 sano. sidoo kale intuu xildhibaan ahaa waxa uu noqday xubin ka tirsan guddiga adeega baarlamaanka ee dalka Kenya. Dr. Kabreta kadib 2 jeer uu soo noqday xildhibaanka waqooyiga Wajeer. beesha uu ka dhashay ayaa 5 sano ka hor soo xulatay inuu u tartamo kursiga senatarnimo ee ismaamulka Wajeer kaasi oo uu ku guuleystay. dhanka shakhsiyadiisa ayaa lagu tilmaamaa nin duun wanaagsan waxa uuna xiriir u leeyahay siyaasiyiinta ugu sareysa dalka sida madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo waliba ku-xigeenkiisa William Samoei Ruto. sidaasi salamid ah waxaa la sheegay inay aad isugu dhow yihiin siyaasiyiinta ismaamulka Wajeer. musharax Kabreta ayaa sheegay ajendihiisa koowaad inuu ka dhigi doono la dagaalanka musuqa ka jira ismaamulka Wajeer uuna kor u qaadi doono nolosha shacabka Wajeer uuna wax ka qaban doono abaaraha ka jira ismaamulka Wajeer haddii la soo doorto. salamid ah waxa uu intaas ku daray in qof kasta xaqiisa ka heli doono ismaamulka. musharaxa labaad ee aan maanta warbixintan ku soo qaadan doono ayaa mulkiilaha isbitaalka Nairobi South Dr. Aadan Xasan oo loo garan og yahay Fuuje. dhakhtarka ayaa ka mid ah dhowr musharax oo ay soo xusheen beesha uu ka soo jeedo inkastoo qaar ka mid ah taageeradiisa ku aaminsan yihiin inuu yahay midka u qalmayn kursigaas loo dhiibo. dhakhtarka ka hor hankiisa siyaasadeed ee raadinta kursiga barasoonimo inta ugu badnayd noloshiisa waxa uu ka soo shaqeeyay dhanka caafimaadka. Dr. Fuuje ayaa ka mid ah kuwa aadka loogu jecel yahay marka ay timaado daryeelada bukaanada. isbitaalkiisana waxaa la sheegay inuu aad uga caawin jiray dumarka iyo waliba caruurta waa dhanka daaweynta. Dr. Fuuje ayaa mar uu wareysi bixinayay sheegay in ay tahay xilligii uu shacabka Wajeer u adeegi lahaa uuna yahay qofka ka saari lahaa siyaasad xumada horumar la'aanta ka jirta ismaamulka Wajeer haddii ay doortaan. dhakhtarka waxa uu intaas ku daray in Wajeer ay u baahan tahay maamul haboon. dhanka kale dadka dhaliilsan siyaasadiisa waxay sheegeen inuusan awoodin in maamul wanaagsan uu ka hirgeliyo ismaamulka Wajeer. guud ahaan ismaamulka Wajeer ayaa ka kooban 6 deegaan doorasho 5 ka mid ah deegaanadaas waxa uu sharaxan siyaasi kaasi oo raba inuu barasab ka noqdo ismaamulka Wajeer. daawadayaal intaasi hayno u ekaato warbixinteennii ee qaybta labaad ee u qalma kursiga gafanaatoraha ismaamulka Wajeer. insha Allah qaybta saddexaad ayaan idinkula wadaagi doonaa halkan waa Living Bro. fadlan ku soo biir oo qayb ka noqo saaxiibada ku xiran Living Bro. mahadsanid.